السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مال كسر جوكتان أدبني السلام عليكم وأنا هو لالكين سانكا halka ga dawanaysan waa happy family ku soo dhawaada gacan fureenay taafeen su'aal yar waxaan rabaa aad macnaha meel badan u taabanaysan idin weydiiyo su'aashaas oo ah macnaha marka horta waxa jirto sideedaba intaan su'aashada weydiinin waa idin faahfaahinaya waxa jirto dadka gaalada ah ee macnaha ama wadanka ku noolna ha ahaato ama wadamada kale ha ahaato dad waxa jira marka qofka maanta uu dhinto wuxuu yaalaa adiga 7 bari 8 bari 14 bari dad baa waxay firish isaga jiraan adiga 20 bari ka badan marka anagana waxaan nahay markii maanta qofka uu dhinto hatta inuu gaarana laga yaabaa duhurkii hadduu salaad subax dhinto duhurkii inuu gaarana laga yaabaa duhurka duu dhinto inuu casar gaarin banaanka uu yaalaa ka wada macnaha oo banaanka uu yaala midkiisa aanan macnaha diinteena nasiino sheegaynin markuu qofka dhinto hal la dejiyo qabrigiisa la geeyo there's no reason oo qofka banaanka uu yaalaayo oo isbuuc ama 2 isbuuc ama 3 isbuuc inta way ma soo booqanayaan maya qalbiga leenahay qofka hadii macnaha uu dhinto oo u imaatid aragtid qalbiga waliiska bago'ay waligaaba qof aad dhinto marka maqashid qofka ku sawirmay saaxiibka haduu yahay hooyada hadee tahay walaasha hadee tahay in adeerka haduu yahay qofku ahaadaba qofki wajigaaga kama go'ayaba that's why loo dejiyo marka iyadoo saas ay tahay dadka gaalada waxay suubiyaan mar qof aad dhintay qof aad loo soo haya gareenaya waxa la leeyahay kale qofkan waxa rabnaa oo aad u qabaysid makeup u marisid dharka ka bedeshid macnaha suufafka laga galiyo dhagaha laga galiyo jirto wax u bedeshid la rabaa marka qofkii markuu qolka soo galo rida loo xirayaa marka la diminayaa qofkii marka qalbigiisa si kala noqonayo waa ooynaya ridii qaraacaya waa badboodaya marka su'aasha meesha taala waxay tahay maadaama qofka uu dhinto aan ognahay qofka uu dhinto uu soo kiceynin uu bahal noqonin dadka cuneynin markuu qofka dhinto halkaas u yaalo hadii lagu dhaho waraa qolkaas alaab iga jirta iga soo bixi wadna ku gashid kaga soo bixisid malaha lacala hadee dhacdo in qolkaas gashid alaabta ka soo bixinaysid nama taqaana qofkii uu yaalo irida dil lagu xiro dadka qaar baa waxay ku dhici karta qalbiga inuu dilaaco oo waashaanba midkii la fiirina wala urda wala oyna wala qaylina maxay ku dhacdaa taas why dadka macnaha aad uga cabsadaan qofka markuu meedka yahay marka uu nool yahay uu jiifan caadi ay u tahay commentiga hoos ku rabaa jawaabtaas sababta way ugu soo noqotay aniga isweydiiyay 10 jeer isweydiiyay su'aashii macnaha wax way iga bixi waayeen toos ah oo laga cabsoodo way iga bixi waayeen aniga idin la hadlayo ma ahi macnaha qof geesi ah qof ma ahi macnaha qalbigu ku jiro galo oo macnaha alaab ka soo qaadanay ma ahi ban midin sheegay laakiin si cabsida aniga ugu jirto idinkana idin ku jirta qiyaasay waay marka ay u dhacday hadda ka hor marka sheeka idinka sheekeynaya yar hadda ka hor waxa dhacday qof aad dhintay magaalada Kismaayo joognay qof aad dhintay waxa li macnaha dagaalada xabada jira xabada isaga dhacday soo iska soo xabad wiifta jirto markaas oo iska soo dhacayso qofka isaga dhacayso isbitaalka la sageynaa qofka xabada ku dhacday waa la soo qaaday qayb waxa jirta marka isbitaalka dadka lagu dhaqo meedadka la dhigo oo qofka dii la soo sheegan waayo ama la garan waayo waa la duugaya marka qolkii la dhigay qofkii qof waxa jira dhaqo oo lacag ku qaata markaas qofka dhaqaayo waxa dhacday marka qofkii xabada ay ku dhacday ilaa muuna dhimanin oo xoogaa dhiig bax badan ku jiray waxa loo mariyay markii uu dhintay meeshan dhaqaatiir fara badan iyo wax sameeyay jirin waqti hore ka hadlaya marka dhaqaatiir aad u fiican iyo wax sameeyay jirin qofka waa la qaaday waa dhinta la dhahay qof markii xabad ku dhacday oo meel cabar u yaalo waxa la dhigay qofka waa dhinta la qaaday isbitaalka la geenaya qofkiisa dusha sheegan waayo fi sabiilillah waa lagu kala baxaya qofkii waxa la dhigay qolkii meedka la dhigay meedad fara badan waa yaaleen oo markaas inta dagaaladii Sacuudiga xabadii ku soo dhaceen ku dhinteen ninkii dhaqaayay aan soo galay marba mid la soo qaadaya meesha la saaraya laba nin waay waa dhaqaayaan lacag ku qaadanaya waa la dhaqaaya qofkii waxa loo xirayaa maalintii waxa la lahayn janaasa inta laga dhahaa laakiin af Soomaali waxa waa kafantii loo xirayaa qofkii marka kafantii loo xiraayo qofkii waxay ahayd ma la dhaqay marka la dhaqay labada qof meesha ku jirto iska sheekaysanayaan marka iyaga qof marka la dhaqo oo meesha la dhigo xogaa banaanka loo baxaa oo soo leersanaya waa la soo noqonaya waa qol yar daqiiqada aan lahayn aad u qabow oo loogu talagalay meedadka la dhigo markii oo macnaha qofka isbitaalka ugu dhintay meesha la soo dhigo dadkiisa inta u imanayaan qaadanayaan
qofkii waxaa dhacday marka meeshii la dhigay daqiiqada kamana soo wareeganin qofkii waa la dhaqay mid ahaana loo dhaqay waa la diyaariyey meesha la saaray qofka banaanka u baxeen xogaa soo leersadeen waa soo noqdeen markay gudaha soo galeen oo marada saa loo soo qabto marada dhinaca laga saaray dhinaca laga saari rabo qofka waa soo fadhiistay ninkii meesha dhaqaayay mataqaanaa oo marada ku xiray oo gacanta qabtay wariya waxaa ka dhacda dee hal is ceersaday isbitaalkii oo dhan sababtoo ah qof meedaa soo kacay wow waxaa waaye dadkii dhan waa wax istaajiya la waayay waxay noqotay in aad la isku daba raacay oo ilaa cabaar la orday marka aniga su-aasha waxaan garan waayay marka mentality-ga ah in qawraha marka la tago dadka ay uga cabsadaan ay u dhahaan habeenkii lama dhex seexdo in qol qabri meed uu ku jiro oo adiga saaxiibka ku dhow yahay hataa haddii la galo aan qofkaas cabaar ku dhex jiri karin keligiis diirad loo soo xiran ayba tahayba waaley marka haddii idinka sheegadaas oo kale ku dhacday commentiga hoose soo gal nugula wadaag maxay kula tahay maxaa looga cabsoodaa bal imagine garee adigoo qolkaas camal ku dhex jirtid oo dee cabsi lagu daaray filin nooc kale ah lagu daaray bal qiimee mid kale maanta jawiga aad uu qurux badan yahay oo jawi aad u macaan qurux badan in jim meel dheer u aadi jiray hadda waxaaba arkayba guri horteeda kasoo jeedo halkan oo hotel waqtigeena kasoo jeedo ay jim ku dhex yaalaaba jim yar oo qurux badan ku yaala meesha marka anigoo hadda soo dego alaab mooto u dhiibaya waxaan arkay jimkaas marka waxaan isdhahaa marka kor intaada ku noqonin su-aasha dadaa waxaa ka sheekeynayaan maxaa lahaa meesha jooga dhalinyaro meesha joogta madow meedka waa laga cabsoodaa saan wixii laga sheekeynaya waxaan is dhahay marka bal asxaabtaada la wadaag fikradda iyaga ay ka qabaan cabsida noocaas oo kale ay waxaas ay qabaan bal iyagana fikrada wax ka qaada bal taada in u gudbi iyagana tooda wax ka qaadatid marka insha Allah videogan halkaas kusoo gogweynaya videogan video xigo inta kulmi doono waxa idin ka tagay waxay tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fi amaanillah